wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka xusuus ujoog media waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu waaweyn ee janalka caawa qodobada aad ku daawan doontaan haddii Allah awood leh uu raali ka noqdana waxa qayb ka noqon doona koox dhalinyaro ah oo dadka ku dhibaateyn jirtay magaalada Muqdisho oo gacanta lagu soo dhigay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo amar ku bixiyay in nolol iyo geeri lagu soo qabto cidii dhibaato dambe ka geysatay degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose boqorkii cuudka ee Axmed Ismaaciil Xudaydi oo magaalada London ugu geeriyooday xanuunka coronavirus faahfaahin ka soo baxay qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari warar kala duwan oo ka soo baxay dhakhtar lagu dilay degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir Kenya oo gubtay qaad lacag ahaan gaaraya $4 milyan oo loo soo waday magaalada Muqdisho dawladda Imaaraadka oo gargaar ka dejisay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya oo ku dhawaaqday go'aan xasaasi ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy oo qorshihii farmaajo iyo Muuse Biixi u weeciyay Khayre iyo Muuse Biixi iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda caafimaad ee ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska waa tahay daawadayaal mar kale ee is-arag wanaagsan intaas aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ee wararka janalka ee xusuus ujoog media oo aad markaasi caawa ku daawan doontaan kani waa janalka xusuus ujoog media fadlan haddii aad ku cusub tahay janalka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe inoo saarto gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela macluumaadka iyo warbixinada aan bartan soo gelino mar waliba inagala soco xusuus ujoog media ku soo dhawaataan markaana wararkaas aad daawateen oo intaas ka faahfaahsan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa la soo warinayaa koox dhibaato ee u geysan jirtay dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ciidamada dawladda waxa ay gacanta ku soo dhigeen kooxdaasi maamulka degmada Wadajir iyo taliska booliska degmadaas ayaa waxa ay sameeyeen howlgallo lagu soo qabqabtay kooxo la sheegay inay qalqal amni ku hayeen degmadaasi gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga oo hogaaminaya howlgalkaas ayaa waxa lagu soo qabtay ilaa iyo 7 dhalinyaro ah oo ku hubaysnaa mindi iyo baangado kuwaas oo dadka dhibaateyn jiray gudoomiyaha degmada Wadajir Maxamed Cabdiraxmaan Cali ayaa sheegay in raggan ku hubaysnaa mindiyaha iyo baangadaha ay degmada ku hayeen khalqal amni isla markaana laga soo dacwooday raggan lagu eedeeyay inay amniga liddi ku ahaayeen ayaa waxa lagu wareejiyay xeerlaaliyaha qaranka iyadoo la filayo in dhawaan la soo taago maxkamad ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa fariin digniin ah u diray dhalinyarada ku hubaysan mindiyaha iyo baangadaha ee markaas rabshadaha ka wada xaafadaha qaar ee magaalada Muqdisho ciidamada dalka Kenya ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa lagu soo waramayaa in qaad ay ku kacayaan lacag gaaraysa $4 milyan ay ku gubeen xeebta Lamu ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya qaadkaas oo la sheegay in loo soo waday gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa saacadihii la soo dhaafay gubay qaad markaasi la doonayay in loo soo gudbiyo gudaha Soomaaliya qaadka oo lagu siday 2 doomood ayaa waxa gacanta ku dhigay ciidamada badda Kenya ee ka howlgala gobolka Lamu gaar ahaan biyaha badweynta India sarkaalka dawladda Kenya ee uga wakiilka ah gobolkaas oo lagu magacaabo Irungu Machera ayaa sharaxaad ka bixiyay sida lagu qabtay qaadkaasi dambiilayaashu waxa ay sheegteen in magaalada Ikonge oo ku taal sohdinta Lamu ee Soomaaliya ay u wadeen geedaha la isku daaweeyo balse waxa aan ka warqabnay ganacsigooda qarsoodiga ah ee Soomaaliya ay u soo gudbiyaan ayuu yiri Macheria sidoo kale waxa uu intaas ku daray in talaabada ay tahay mid lagu dhaqan gelinayo go'aankii lagu mamnuucay isu gudubka dalalka sabab la xiriira coronavirus dadku waa ay og yihiin oo waa ay la socdaan in dawladdu mamnuucday isu gudubka dalalka sababtu waa go'aanka lagu xakameynayo faafidda xanuunka coronavirus sidaas oo ay tahay waxa aan xadideynaa dhaqdhaqaaqyada nooc walba si go'aanku u dhaqan galo ayuu mar kale yiri Irungu Macheria siday ogaatay warbaahinta qaadka la gubay ayaa waxa uu ku kacay lacag dhan 25 milyan oo shilinka Kenya oo u dhiganta lacag gaaraysa $4 milyan Mareykanka ah Soomaaliya ayaa inta aysan mamnuucin duulimaadyada caalamiga ah iyo kuwa gudaha wuxuu qaad fara badan maalin walba uga imaan jiray ee dalka Kenya balse waxa la joojiyay markii kiisas kamida coronavirus laga diiwaan galiyay gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho wasaaradda waxbarashadana waxa ay soo saartay go'aan xasaasi ah oo ku aadan waxbarashada ardayda Soomaaliyeed wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay go'aano ku saabsan dhinaca waxbarashada loogana hortagayo cudurka coronavirus warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka waxbarashada Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa lagu shaaciyay qodobo ay kamid yihiin
in la joojiyo bixinta casharada dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka 2019-2020. wasaaradda ayaa sheegtay in arday kasta loo qiimeyn doono heerka uu casharada ka marayay markii ay wasaaraddu waxbarashadu ku dhawaaqday in la hakiyay waxbarashada oo ku beegneed 19 bishii hore. sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in ardayda ay u fadhiisan doonaan imtixaanka dugsiyada sare iyadana ay markaasi soo gudbin doonto waqtiga iyo qaabka uu noqon doono imtixaanaadka la qaadi doono. dowladda Imaaraadkana waxa ay markaasi gargaaro ka dejisay garoomada Hargeysa iyo garoonka magaalada Garowe. waxaa saaka garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa ka degtay diyaarad siday gargaar oo ka timid dalka Imaaraadka Carabta. diyaaradda oo caga dhigatay garoonka caalamiga ah ee Cigaal ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay siday gargaar caafimaad oo Imaaraadku ugu deeqay Somaliland. gargaarka ayaa isugu jira daawooyin iyo agab caafimaad oo loogu talagalay xakameynta cudurka faafa ee coronavirus. wasaaradda caafimaadka Somaliland oo la wareegtay deeqda ayaa u mahad celisay dowladda Imaaraadka Carabta gargaarkaas ay u soo dirtay. dhinaca kale maamulka Puntland gaar ahaan magaalada Garowe ayay dowladda Imaaraadku ka dejisay agab la mid ah alabka laga dejiyay magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland ayaa ilaa iyo hadda xaqiijisay 2 kiis oo ka mid ah cudurka COVID-19 oo wali farabaan ku haya wadamo badan oo ku yaala caalamka. dhinaca kalena faahfaahinno kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan qarax khasaare geystay oo ka dhacay saacadihii la soo dhaafay magaalada Boosaaso. waxaa warar dheeraad laga helayaa qarax sababay khasaare kala duwan oo xalay ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoo oo wararka qaraxaas la xiriiran ay yihiin kuwa isu soo taraya. qaraxa oo ahaa miino isla markaana ka dhacay busteejo gaadiidka laga raaco ayaa waxaa la beegsaday gaari ay lahaayeen booliiska Puntland. waxaana la sheegay in marka qaraxa la bartilmaameedsanayay gaariga booliiska ay ciidanku wadeen howlgallo ay ku xaqiijinayeen bandowgii dhawaan ay soo rogeen madaxda maamulka Puntland. sida laga soo xigtay dadka deegaanka qaraxaas ayaa waxa ku dhaawacantay ugu yaraan 10 qof oo 9 ka mid ah yihiin dad shacab ah halka hal askari uu ku dhaawacmay qaraxaasi kaas oo ka mid ahaa ciidanka booliiska maamulka Puntland. xalay la isaakay waxaa magaalada Boosaaso ka socda baaritaano kala duwan oo ay wadaan ciidanka ammaanka Puntland kuwaas oo ku raajooga dadkii ka dambeeyay falkii qaraxa ahaa ee ka dhacay magaaladaasi. weli ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi waxaana maalmihii la soo dhaafay Boosaaso ka dhacay qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo loo geysanayay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland. markaana haddii aynu dib ugu soo laabano magaalada Muqdisho dhakhtar caan ahaa ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir. waxaa faahfaahinno laga helayaa kooxo hubeysan oo xalay degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir ku dilay. allah u naxariistay dhakhtar Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Xasan Xaayow. dilka dhakhtarka ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay suuq Bacaad waxaana kooxda dilka fulisay ay ku hubeysnaayeen qoryo kuwa oo markii ay falka geysteen kadib goobta isaga baxsaday sida ay noo sheegeen dadka deegaanka. marxuumka ayaa waxa uu ahaa dhakhtar si weyn looga yaqaanay magaalada Muqdisho waxaana warar aan la xaqiijinay sheegayaan in dilka dhakhtar Xasan Xaayow uu salka ku hayo aano qabiil. magaalada Muqdisho ayaa inta badan waxaa ka dhacay dilal qorsheysan oo loo geysto mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, ganacsato, odayaal iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaana ciidamada ammaanka ay kaliya sameeyaan falalka kadib baaritaano aysan ka soo bixin wax natiijo ah. dhanka kalena gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote oo ku sugan degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa si adag uga hadlay ee dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday magaaladaasi. Shoote oo kulan gaar ah la qaatay maamulka iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxa uu u sheegay in aan loo dul qaadan doonin sii socoshada ee colaadahaasi isagoo tilmaamay in cadaaladda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyay dhibaatooyinkii ka dhacay degmadaasi. sidoo kale wuxuu amray ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaan danab oo dhawaan la geeyay Wallaweyn in ay maleeshiyaadka wali dhibaatada ka wada degmadaasi ku soo qabtaan nolol iyo geeri midkood. ciidamada danab ayaan u dirnay Wallaweyn waxaana amarnay in ay tallaabo ka qaadaan dadka ku lugta leh dagaal beeleedyada dhacdooyinka naxdinta leh laga dhaxlay. waxaan sidoo kale amarnay in nolol ama geeri ay ku soo qabtaan shakhsiyaadka dhibaatada wada. xitaa waxa uu amarkan taabanayaa dadka difaacaya ayuu yiri gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote. allah u naxariistay boqorkii cuudka Axmed Ismaaciil Xuseen Xudaydi ayaa u geeriyooday xanuunka coronavirus.
fanaankii abwaankii iyo mulxamiistihii caanka ahaa ee Soomaaliya Axmed Ismaaciil Xuseen oo loo yaqaan Xudaydi ayaa xalay ku geeriyooday magaalada London ee dalka Ingiriiska halkaasi oo uu ku xanuunsanaa maalmihii la soo dhaafay. Xudaydi oo loo yaqaanay boqorkii cuudka ayaa waxa ku dhacay cudurka coronavirus oo muddo toddobaadyo uu ugu jiray cisbitaal. Xudaydi ayaa noqday qofkii saddexaad oo caan ah oo Soomaaliyeed oo coronavirus ugu geeriyooday magaalada London kadib Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ahaa ciyaartoy hore iyo tababare iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde inkastoo Nuur Caddaan la xaqiijin in coronavirus uu geeriyooday. Axmed Xudaydi oo ku geeriyooday da'da 92 ayaa waxa uu ahaa rugcadda lagu qadariyo heesaha cuudka ama kuwa kabanka oo muddo ka badan 70 sano uu ku jiray. sidoo kale Axmed Xudaydi ayaa qaaday heeso kala duwan waxaana kamid ah heesta uur hooyo iyo kuwa kale waana heesta uu caanka ku yahay ee Allah u naxariistay Axmed Xudaydi ee uur hooyo. Xudaydi ayaa isagoo 14 jir ah aabihiis wuxuu u kaxeeyay xaflad ka dhacaysay magaalada Cadan ee dalka Yemen halkaas uu kula kulmay nin Carab ah oo cayaaraya cuudka kana jeclaaday. Aabihiis ayuu ka codsaday inuu u iibiyo wuxuuna kadib sida loo cayaaro ka bartay Cabdullaahi Qorshe wixii markaas ka dambeeyana waa uu garaacayay. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa waxa lagu soo waramayaa in qorshihii Farmaajo iyo Muuse Biixi uu ku kulansiin lahaa uu u weeciyay dhinacaas iyo kulanka Khayre iyo Muuse Biixi. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa dib u soo nooleeyay dadaaladii uu dib ugu furanayay wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland oo muddooyinkii dambe fadhiid noqday. sida ay ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan madaxtooyada Somaliland u sheegeen warbaahinta. Abiy ayaa qorshahaas ugu horeyntii u soo bandhigay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre xilli uu dhawaan safar ku tagay caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa. Abiy ayaa arrinkaasi ku sababeeyay fikir uu qabo oo ah in reer Somaliland ay waxyaabo badan ka tirsanayaan madaxweyne Farmaajo oo xasaasiyad gaar ah ka qabaan maadaama ay Somaliland ganafka ku dhufatay safarkii Hargeysa ee uu qorsheynayay in Farmaajo uu ku geeyo. Khayre ayaa lagu soo waramayaa inuu aqbalay qorshaha cusub ee Abiy isla markaana uu sii bandhigay madaxda reer Somaliland ee xukuumaddiisa ku jira si ay gacan uga siiyaan in arrinkaasi uu rumoobo. ugu dambeyntiina Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa ku jira maalintii labaad daryeel isagoo ku jira qolka ICU-da ee la dhigo dadka bukaanada daran ah. Waxa uu dareemayaa hadda deganaansho kadib markii lagu taageeray oxygen si uu u neefsado. Boris Johnson oo laga helay cudurka COVID-19 ku dhawaad 2 toddobaad ka hor iyada oo loo qaaday cisbitaalka St Thomas ee ku yaala bartamaha London maadaama uu dareemayay qandho daran iyo qufac laakiin xaaladiisa ayaa ka sii dartay saacado kadib oo waxa loo wareejiyay qaybta daryeelka degdega ah. 55 sano jirkan hogaamiyaha Ingiriiska ayaa dalkiisa waxa uu wajahaya halista cudurkan safmarka ah ee corona iyadoo xukuumaddiisa ay qaaday tallaabooyin lagu xakameynayo cudurkaana. waa tahay daawadayaal intaas waxa ku dhan wararkii oo aad ka daawanaysay channelka Xusuus Ujoog Media intaan mar kale warar la mid ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.